حيسي حيسي حاجك قرصونيو حالكا دحسونا الحقيقة waxaa kaloo soo noqday beriyahan dood ku saabsan 16 Juun iyo 18 May 16 Juun taariikh shacbiga reer Soomaaliland wada leeyahay oo maalintii ay ka qaateen gobonimadooda dawladda Ingiriiska waxaanu qabnaa inay tahay taariikh muhiim ah oo shacbigani leeyahay oo aan sinaba taariikhdooda uga bixi karin oo ay wada leeyihiin 18 May waa taariikh kale oo Soomaaliland lahayd waxay la tahay arrintaasi maalinta qaranka Soomaaliland waa arrin laga doodi karo teebaynu u daysanaa teebaynu wada leenahay wasle halgankii Soomaaliland ku timi laftigeedu waa halganka 18 May lagu suntay haddii cidi ka maqnaydna mid aynu wada leenahay samaysan doonaa haddii ilaahay ka dhigo gudoomiye Cabdiraxmaan maalinta qarannimada Soomaaliland oo dastuurka ku taala ayuu si toos uga horyimi isagoo oo sabab uga horyimi aan noo sheegin waxa uu saa ku sheegay maalin la wada leeyahay in la samaysan doono maalinta la wada leeyahay 18 May aan ahayn garan maayo 18 May wuxuu ka dhigay maalin cid gaar ah leedahay manay ahayn taariikhdu oo meel ku keenay ma garanayo 18 May maalin islam ay lahayd ama dalka laga soo galay ama taariikh islam ku suntan ma ahayn maalin waxay ahayd kuwii islam ahaa iyo kuwii ka soo horjeeday dawladda la socday ay labaduba isla garteen in qarannimadoodii luntay ay soo ceshadaan oo ay dawlad gaar ah noqdaan sidii ay 60kii ahaayeen garan maayo meeshuu Cabdiraxmaan ka keenay waxa u muuqataa inuu raali gelinayo cidda loo tirinayo ee uu mar walba la fikirkayay oo Soomaali ah 26 Juun waa taariikh Soomaaliland leedahay Soomaaliland waa laga xusaa oo waataynu ku garnaqsanayno ee aynu la tagayno meel kasta garteena lagu qaadayo Soomaali oo waa taariikh imika waynu xusno laakiin maalinta qarannimada Soomaaliland ee dastuuriga ah waa 18 May waana maalin bari iyo galbeed iyo beel waliba ay goobjoog u ahayd oo la wada lahaa may ahayn maalin islam may ahayn maalin qabiil leeyahay may ahayn maalin gaar ah Cabdiraxmaan waxa ka muuqata in aanu garanahayn ama uu bareeriyo oo uu la fikir yahay kuwa sheegta mar walba ee maal gashaday ee aanu maalin qura u jawaabin because wuxuu og yahay hadduu u jawaabo inay warbaahinta soo fadhiisanayaan oo ay kula xisaabtamayaan wixii ay gashadeen oo ilaa dhar ku xidhan yahay ay sheegan doonaan sidii imika barkhad loo sheeganayay ee uu uga hadli waayay kuwii sheeganayay muwaadin dhagayso heestan waxaan leeyahay Cabdiraxmaan labadeena seefood waa tii saawir noqota Somaliland iyo Somalilandid ayaynu kala nahay wanaageeda ku soo horjeedaa ammaankeeda ku soo horjeedaa qarannimadeeda ku soo horjeedaa haddana madaxweyne ka doonaysa waxaan leeyahay inta aqliga leh way garanaysaa labadana seefood isawir noqotaa sinjigura weeyaan labadana seefood isawir noqotaa sinjigura weeyaan Somaliland hashii
safarka kagayay Somaliland heshiis nirigtaad gaabka shaashku safarka kagayay subaxda wada jiro saamiyo saami goobta uga helay saami goobta uga helay subaxda wada jiro saamiyo saami goobta uga helay saami goobta uga helay sabarka iyo dheegiyo candhadeeda saabka aan wax lala simaa jirin ninka sidigis yiriyo suuroobi mayse sabarka iyo dheegiyo candhadeeda saabka aan wax lala simaa jirin ninka sidigis yiriyo ku suroobi mayse labadeena seefood watisaawir noqotaa labadeena seefood watisaawir noqotaa